حبوكيني بزحر كدوتو باهي ربي مني باهي زان ريبنو عيد وبرواقي عم بيرحلنو باهي زان ريبنو عيد وبرواقي عم بيرحلنو داوديال كنتو نفسن مال كستو joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena booqashada maanta oo aan maanta ku soo booqanay beer la yiraahdo Likuli oo ku taala galbeedka magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya beertan waxa lagu beeraa noocyada kala duwan ee khudradda ay Soomaalidu sida weyn u isticmaasho saxabugeeni bazahar kaduuto baahi rabbi mane beertan Likuli waxa ay ka mid tahay tiro beero Soomaali ay leeyihiin oo ku yaala hareeraha magaalada Garissa ee xarunta gobolka Soomaalidu ay degto ee Waqooyi Bari Kenya beertan ayaa waxa lagu beeraa qudaarta ay Soomaalidu sida weyn u isticmaasho noocyadeeda kala duwan sida cambaha, canabka, muuska, yaanyada, saytuunka, cawska iyo waliba qaraha beerta waxaan ka bixin wax gashadon beelaada cambadi waad aragtaa saytuunki waad aragtaa liinti waad aragtaa waad arki cawski sida u baxay waad aragtay yaanyadii waad aragtay qarahi hadaad galisa waa intuu dhadhan yahay waad la yaabi waxaan ka bixaynin intuu dhul la geliyo waad aragtaa canab hadda waad soo martay Soomaaliya canabna waa tuuray sida u baxay miro u dhalayna waad aragtay sida uu inoo sheegay milkiilaha beertan oo aan ku booqanay isaga oo shaqo ka wada beertiisa gudaheeda waxa ay beertan dabooshaa nolosha 32 qoys iyo martidooda haddaan dadkiiba ka maarana annagoo dhowr iyo 30 ruux iyo cidoodii dhowr iyo 30 guri oo nin walba cidiisa inta oo ruux ay tahay haddaan ka maarano aan ku raysano oo waata inta ka deganna soo wax soo saar malo ma jirto dawlad ama shirkad gacan ka siisa tacbashada beertan qoyska iska leh taasoo muujinaysa isku filnaanshaha ay Soomaalidu gaari karto haddii ay muruqooda isticmaalaan halka keli ee maanta annaka aan u baahnaan lahayn waa nin wax kasi daawadan ku buufi waqtigan waraabi waqtigan ka raab waqtigan abuur geedka labada geed inta ka isu jirto wax yar baan u baahan mooga dhul oo ma baahnin biyana oo ma baahnin dadka masaakiinta wuxuu u baahan yahay injinka hadda xiimo oo kale meeshay biyaha mareen hatta bayba fadii loo gali annaka hadda bayba baan gashan annaka gashan markii dawladda aragtay inaan waxoogaa isyaara qaadnay yay baababkii noo waaweyniso kii afartaantay ka bixisay ku lix noo gelis khayr allah siyaada wax weyn bay noo tareen oo biyihii inagu yaraaba yaana deeq beertan iyo sida ay u dabarto nolosha 32 qoys iyo haddii ay Soomaalidu beero tacbato faa'iidada ay heli karto waxa sharaxaya milkiilaha beertan wax soo saar way leedahay ma haddaan dadkiiba ka maarana annagoo dhowr iyo 30 ruux iyo cidoodii dhowr iyo 30 guri oo nin walba cidiisa inta oo ruux ay tahay haddaan ka maarano aan ku raysano oo waata inta ka deganna soo wax soo saar malo ka dhulka annaka hadda dhibkana haysta wuxuu yahay dhulka anaga baan alla na tusin dhulka anaga baan alla na tusin tuugsasho iyo dadka aan u hoorsigii yaa Ilaahay nagu ibtalay marka waxay ahayd waxaan dhul aan haynaa biyahan waad aragtaa iska qulqulahay meeshay ku socdaanna ma buuxsanto meeshay ka imaadaanna ma dhamaadaan dadkii ka faa'iidi lahaa biyahan ka faa'iidi lahaa dadkii baa lalay mar gaajada haday ayada ku aragtaa roone mar hadaad adiga aragtana faa'iido mal mar hadaad aragtay nin libaax arko lagu ma karahayo wariyaha marada dhiga biyahan isku shub lagu ma karaha laakiin ninka libaax daba socdo waxa iska socona isaga habeenkan oo dhan iska yaasi uu daba socdo ninka waxba kama og ama uu ku soo boodo ama Ilaahay baa ka reebi marka waxa annaka gaajada ma aragnay gaal Ilaahayga macbuudka haba uu gooyo inaan gacanta u hoorsano oo Ilaahayga macbuudka ayadiisa uu ku yiri adinka rabtaane gaal idan ma rabo waana run ilaa aad ka raacdaan sida asagu yaala miladiisa aad ka raacdaan kitaabka Ilaahayna rubbu sheegay marka dhulkan waad aragtaan inta geeda ku taal waxa mir ee saaran awskan waad aragtaan abaaraha hadda la sheegi dhulkeena abaaraha xoolaheena laga calacala annaka masruufi kam haddana waxaana looga keeni Kenyada hoosana looga keeni caws oo gaari lagu soo rari inta hadda cawsa beerta ku taal waad aragtaa lowlo oo hadda jidkana naga xiranay oo shubabkana aan reebay shubabka aan dhaafno
oon hadda beertan aan joogno waa ilaa 15 ekar beertoo dhanna waa ilaa 100 ekar maxaa ka soo haray 25 ekar 100 markaad ka goysay 75 baa maqan inta haddii 25 ekar oo kale caws keli aad geliso Gaarisa district keligaaba masruuf marka Soomaalida waxaan u sheegi oo muslimka waxaan u sheegi ninkan 9 bilood baa lagu dhalay aabii hooyaa dhal waxba kuma dheero waxaan muslimku cajabada aan qurayno aan iska dayno gaal hadaynan gablan baan noqon lahayn Soomaali baan ka haya hadduu nin cad ahayn gablan baan noqon lahayn ninka cad ma maskax buu ku dheer yahay ma muruq buu ku dheer yahay adaa ka dameersano ka muruq waaweyn marka war Ilaahaygeena ku noqdo Ilaahay baa wax bixiya bogano wa kudega barchone ma pararugnayo urdowanka bogano wa kudega barchone ma pararugnayo urdowanka bogano wa kudega barchone ma pararugnayo benta aynu dayno bola xogto dhaafne danka mawbahawna waxaa xusid mudan in beertan iyo beeraha la midka ah oo ay Soomaalidu leeyihiin inay ku yaalaan meel 100 kiiloomitir u jirta degmada Dhadhaab oo hareeraheeda si qaxootinimo ah ugu jiraan in ka badan 500 oo kun oo qoys oo Soomaali ah kuwaas oo ku nool gacanta wadamada shisheeye marka waxay noqotay Soomaalida waxaan u sheegi qaxootiga u soo guurayso kii Mandheera ka imaada qaxootiga inuu soo galo kii xamar ka imaadana intuu soo gala war Ilaahaygeeda abuurtay wuu joogaa meeshuu rabana idinkuma mooga meesha raka waa idinku dili rasaastana idinma gafaysadii Ilaahay idin qore war dhulkiina ku noqdo oo israaqad Ilaahay u doonto oo Ilaahay barya habeenkii toosoo 8 saac marka joogtaan Ilaahay israaqad nasi oo roobkan waa kan waxa loo leeyahay UN mu roobkan UN roob mu keeni waa mu keeni kar Allah roobka keeni kara ee biyaha inta la dhan wado meeshay ku socdaan aan buuxsameyn meesha ka imaadaan aan dhamaanayn Allah sa loo barya doontaa ninkan wuxuu rabaa inaan fara marnaano oo u tuugsano asaga nin dhergan looma talin kare nin baahan baa loo talin kara marka gaaladan waxay rabaan inaan baahano oo ishadal maqlin oo isku meel imaanin oo waxba isla qabsanin yay rabaan nin inta gaajo kala cararay oo qurbaha tagay yaa qaylo loo diriyo leeyahay war soo gaar dadki muxuu ku soo gaaray shal gaajo la cararay nin kale oo gaal hoos taagayo uu ka tuugsanayaa ama ka shaqeynaya kuwa qaarkood waxa la yiri doofaarka dhaqaaniyay nin doofaar dhaqi goormaan soo hoobi war Ilaahayga macbuudka ha loo toobadkeen oo ha loo soo noqdo dhulkiinan sidan lama haysta dhulalka kale Yahuud waad aragtay dhagax bay degan meeshooda warkaad aragtay cuntada taaliye say u dhargan yihiin waad la yaabi Sacuudiga waad aragtay asaga naftigiisa war waxaan rag wax qabsadaa la laayahay ma ogiye gaajan ma hayse Ilaahayna u soo noqda dhulkiinan Allah idan tus saxabugeni baldaxarka duuto baahiyano dimane baahidan reebno ciidwa barwaaqe ambeera falano baahidan reebno ciidwa barwaaqe ambeera falano bogano wa kudega barchone ma pararugnayo
hurduwan ka bogano waa ku dhega barjowne ma baraarugnayo hurduwan ka bogano waa ku dhega barjowne ma baraarugnayo benta aynu dayno boola xogto dhaafne danka mawbahawna beertan iyo beeraha la midka ahba waxaa biyaha siiya oo jinka ay ku hayaan webiga Tana River oo mara cirifka magaalada Garissa. Webigan waxa uu soodin u yahay magaalada Garissa iyadoo buundada magaalada looga baxo marka la aadayo Nairobi ay ku taalo kontaroolka ugu weyn ee wadanka Kenya. Sidoo kale waxa uu webigan siiya biyaha marka laga soo tago beeraha magaalada Garissa oo dhan, mana jiro ceel biyo laga shubto ama laga dhaansado guud ahaan magaalada. halkan waxaa yaala qalabka filtareeya biyaha webiga kadibna u gudbiya dadweynaha ku nool magaalada Garissa. hadda aad baa hadda loo biyihii yaan loo dhibka u dhamaaday maxaa yeelay asal dameer cabi jirnay oo ogtiin Garissa dadka waa ku dhalateen oo malayna waa joogi jirteen hadda dameer biisho waa yarya ma la arkaba marka hadda alxamdulillah biyahana isticmaalnaa sidii kawaaska u qabatay meeshan si fiican baan kor uga soo kacnay waan soo barbaarnay zaid bogano waa ku dhega barjowne ma baraarugnayo hurduwan ka bogano waa ku dhega barjowne ma baraarugnayo hurduwan ka bogano waa ku dhega barjowne ma baraarugnayo benta aynu dayno boola xogto dhaafne danka mawbahawna dawladda intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni booqashada maanta oo aan maanta kusoo booqanay beerta Likoni oo ku taala galbeedka magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari ee wadanka Kenya. dibinta uu ku mid doono barnaamij noocan ah oo anigu Ibrahim Gedo Cawaale Bibo idinkaga tagaya amaana Allah. hurduwan ka bogano waa ku dhega barjowne ma baraarugnayo hurduwan ka bogano waa ku dhega barjowne ma baraarugnayo hurduwan ka bogano waa ku dhega barjowne ma baraarugnayo benta aynu dayno boola xogto dhaafne danka mawbahawna bogano waa ku dhega barjowne ma baraarugnayo hurduwan ka bogano waa ku dhega barjowne ma baraarugnayo hurduwan
wankabugano wakudega barjowne ma bararugnayo benta aynu dayno bola xogto dhaafne danka mawbahawna daxabogeni baldaxarka duuto bahiyano dimane bahidan reebno ciid waa barwaaqe aan beera falano